dhirta dirudgoon ku deeqale dhirta dirudgoon ku deeqale sida lagta dhamaskale ama dhuuxi wagane dhirta dirudgoon ku deeqale dhirta dirudgoon ku deeqale doolka karanto intuu soo bandhigay qurux ama doolka karanto intuu soo bandhigay qurux dibco waqal daroore ama doolka karanto intuu soo bandhigay qurux ama doolka karanto intuu soo bandhigay qurux dibco waqal daroore danka saaxil iyo xeeb dhulsankaynu leenahay anka dhaca arooskeenne soo dhofwan waan ku sugayaay soo dhofwan waan ku sugayaay buurta wagar waxay ka mid tahay buuraha alla koreeye ee uu ku dhaabay carrada Somaliland waxay 35 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan tahay degmada Sheekh ee gobolka Saaxil markaad dhinaca bari ee magaalada Sheekh aad gaadho ee aad uga dhaqaaqdo dhinaca tuulada Gugux waxa basar kugu muuqanaya buurta wagar oo si hanaansan isku daba taala buurta wagar waxay ka mid tahay buuraha ugu dhaadheer Somaliland waxaana ka dheer buurta Surad ee Ceerigaaba ku taala buurta wagar waxa ay jooga badda ka sarreysaa 1991 mitir halka bedka ay ku fadhidaana uu dhan yahay 16,800 oo hektar bilowga buurta wagar waxaad cagta saaraysaa dhabooyin ay ka carraabaan lo jirka ama doombirka buurta wagar dusheeda ku jira lo'da waxaad halabsanaysaa jaranjarooyinka dabiiciga ah ee midba mid ku dhiibayso waxaanad hadba ku nasanaysaa bannaano ay buurtani ku soo shubaan biyaha halkaasi oo ay ka baxaan doog iyo dareemo noocyo badan oo duunyada iyo ugaadhuba calafsadaan markaad jooga sare u sii baxdo waxaa ku xanxantaynaysa noocow iyo udug udgoon oo isku lamaan oo ka soo kamkamaya dhirta noocyada badan ee naadirka ku ah dhulkeenna sida geed xamarka riidhaha iscadaysta shadaabka adaarka khamuunta toonta hisqoolaha xiiska calaydhka iyo geeda kale oo badan oo udug u saaxiib ah waxaa indhahaaga soo jiidanaya midabada kala jaadjaadka ah ee ubaxa geedaha ku mariiman ee bilicda dusha buurahaasi ka bildhaamaya muuqaalada geedgaabka ah iyo geeddhaxaadka geedaha ubaxyada sida bilowga waxaad ka dheehanaysaa markaba buuraha hortaada ka muuqda geedaha jirridda waaweyn ee caleemaha xooggan ee dherarka sheegtay sida bardaha wegarka dayibka xasayda shayda dhamasta iyo qaar kale oo badan ayaa madaxa la galay daruuraha googooska ah ee dul hoganaya buurta wagar luuqadda googooska ah ee codka shimbiraha isaga gooshaya geedaha dhaadheer ee buurta wagar ayay naftu jeclaysanaysaa markaad dhex marayso kaymaha jiqda ah ee buurtan waxaa nagu weehanaysay shimbirta caanka ah ee loo yaqaano shimbir malabta oo kugu hoggaaminaysa jirridaha xordan ee malabku dhaansan yahay dusha buurta wagar waxaa ka samaysan durdurro biyo macaan oo aan gudhin gu iyo jiilaal kuwaas oo ka soo shalwanaya dhagaxaanta kala sarraysa waxa aanay ku soo kordhiyeen buurtan bilic iyada oo ay ka harraad baxeen dugaag iyo duunyaba wixii ku nool buurtaasi wagar waxaa ka samaysan qalcado ay degganaayeen ciidamadii boqortooyada Ingiriiska xilliyadii Afrika la qaybsaday dheerarka buurtan ayaa u saamaxay in ciidamadiisa uu dejiyo si uu uga ilaaleeyo badda cas iyo duulaanada kaga iman kara amniga maxmiyadii uu gumaysan jiray cali axmed cabdilaahi xogayaha dawladda hoose ee degmada Sheekh oo ka mida odayaasha buurta wagareed ayaa nooga warramay arrintaasi bismillaahir rahmaanir rahiim meeshan aragtaa waxa weeye waa meel taariikhi ah waa kaabada balaaran ee ugu talagalay inay biyuhu fadhiistaan meelaha kala dhaadheer taariikhdu marka ahayd 1940kii
ayuu kaabaddaa sameeyey ingiriisku halkana aqaladiisii way naga dambeeyeen ku arki doonaa sibirka lagu sameeyey iyo dadka ka shaqeeyayba waxay tuurta kaga soo qaadeen tuulooyinka gugaxay ka mid tahay oo intaasoo dhan la soo lugeeyeen sibirku marka isagu waqtigaa wuxuu ka fekerayay inuu biyaha xidho oo dabeedna ay meesha biyo fadhiisin noqoto nimco noqoto oo erosionka iyo boholaha ka dilaacaya ay ka fadhiistaan sidaa awgeed markaa kaabadii waa taa weli waa caynkeedii intaasoo sannadood baa ka dambaysay waa taa caynkeediia waxaana hawsha fuliyey nimankii ingiriiska ahaa ee markaa maxmiyadda ingiriiska ee joogtay somalilan sida kale waa aragtaan waxa weeye dhulku barwaaqada ku taalla iyo dhirta ku taalla iyo sida ay tahay iyo biyaha soconaya dhirtu intay laaleeg tahay noocyada kaynta ee kala jaajaadka nooc walba leh ee meel walba leh ee ilaa saaka aynu dhex maraynay waa waxda ilaahay loogu mahadnaqo waana dhul dihin oo u baahan in dadkan magaalooyinka iska fadhiya ee leexooyinka yar ku wareegaysanaya inay yimaadaan oo dalxiis ugu keenaan carruurtooda ay baraan dhulkooda waxa qaniimad ku taalla ama dhirta iyo doogga iyo udugga iyo udgoonka waxa loo waxa dhir adduunyada ka baxay waxa Soomaaliya ka baxaba Soomaaliyaba ilaa Soomaaliya waxay ku yaaleen halkan nooc kasta way leeyihiin magacyay leeyihiin mid walba la garanayaa udgoonkooda imika marka saa u dhex marayso udgoonka ka baxaya dee carfi baad moodaa waxa weeye waaba neefsiga oo quraabay dadka iyo carruurta iyo dadka bukaa ku dawoobayaan sidaa awgeed waxaan leeyahay inta lagu wareegaysanayo laamigan iyo baabuurtan iyo qiiqan iyo meelahan yaree gaagaaban dadku dalxiis ha u yimaado oo dibadda ha looga yimaado oo ha laysku sawiro ha loo hoydo carruurta ha lagu marxabaysiiyo ku soo dhowaada waan leenahay waa meel furan oo ammaana oo nabadgelyaha oon wax bahalna joogin xoolaha iyo bilaadanka mooyaane wasalaamu calaykum raadadka diinta islaamku ay bilowgii meelahani